Allah u naxariistee waxa shil gaari ku geeriyooday Jaamac Axmed Ayaale oo ku magac dheeraa Jaamac Jabuutawi halka uu shilkaasina ku dhaawacmay Boqor Maxamuud Axmed Liibaan oo xilligaasi ahaa irga nabadeed oo dagaalka Ceelaf Weyn ee labada maalmood socday uga soo kicitimay subaxnimadii hore magaalada Hargeysa iyagoona markii ay diyaaradda ka degeen markiiba bilaabay safar ay ku tagayaan magaalada Ceelaf Weyn waxaana sidoo kale safarkaasi ku wehelinayay maamulka gobolka iyo madax dhaqameed kale oo culaadda Ceelaf Weyn ka soo cusboonaatay halkaasi u tagayay in ay joojiyaan haddaba ka hor intii aanay gelin safarka ay Ceelaf Weyn ku tagayaan ayay warbaahinta Ilsar Media kula hadleen garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceergaabo waxayna ku baaqeen in la joojiyo dagaalka Ceelaf Weyn ujeedada socodkaygu waxa weeye in xal loo helo iyo xabad joojin dagaalka ilaa shalay ka socday Ceelaf Weyn kaasoo runtii aafo aan loo baahnayn marka hore ilaahay waxaan la kaalmaysanaynaa inuu naga qaboojiyo marka labaad waxaan ugu baaqaynaa reer Ceelaf Weyn annagoo afkoodaba ku hadlaynaa inay joojiyaan colaadan aan ku dhisnayn caqliga iyo diinta midna ifiya aakhiraba ummadda ka reebtay waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan xabad joojin sameeyaan run ahaantii waanu la kaashanay odayada Ceelaf Weyn dhammaanteed hadday boqorro tahay ama salaadiin iyo xukuumadda intaba waxaan u mahad celinaynaa ciddii kasta ee gacan naga siinaysa hawshaas mas-uuliyiinta dowladda iyo mas-uuliyiinta ama hoggaamada reer kale waanu ku ballansannahay labada daraf ee meesha isku haysta ugu dambayntii waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu dhammaan colaadda waddanka ka ogan inaga qaboojiyo sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan beelaha jaarka iyo deegaanka intaba inaanu hayno nabadgelyo ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu nabadgelyada naga aqbalo kulli maqsadkaan u soconno baytul maqsidkaan u soconayno oo dadka masaakiinta ee halkaas ku haysta inaanu nabad iyo xabad joojin ugu baaqno dhammaantoodba labada darafba annagoo ka soo jeedna labada qayb ka mid waxaanu soo dhaweynaynaa cid kastoo nabad nagala qayb qaadata hawsha xabad joojinta iyo nabaddaba aad baanu soo dhaweynaynaa xukuumad iyo shacabba waa soo dhaweynaynaa iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay ciddii hawshaa ku howlan ay la shaqeeyaan nabaddana qaataan wakhtigani maaha wakhtigii gacan laysku halaagi lahaa maaha caqliguna shaqeeyo baa loo baahan yahay Cabdiraxmaan Ilsar warbaahinta Ilsar Media